maantay sida aad la socoteen mudanayaal waxaanu isugu nimid shir uu jeergareynayay madaxweynaha shirkaasoo la xiriiray arrimaha dhaqaalaha gaar ahaan habka diiwaangelinta sharciyeynta dhulka oo aan horay wareegtooyin badan uga bixinay dood dheer ka bacdi waxa la isku afgartay marka ugu horeysa dadka shacabka ah in loo daneeyo bacdama ay jirto cudurkan safmareenka ah oo COVID-19 ka la baxay oo dhaqaalihii uu isdhimay inaanu dadkayaga aanu u tixgelino dhaqdhaqaaq la'aanta iyo inkamka yar iyo shaqo xumida uu abuuray cudurkaas waxa inta noo weeliya anaga cirkiina waa naga xiran yahay dhulkiina waa xiran yahay badina waa xiran tahay marka ganacsiga waa iska yaraaday mar hadduu yaraadayna hadda waxa weeye dakhligu waa yaraanayaa canshuurtuna waa yaraanaysaa waxa la yiri marka sidee baanu arrimahaas u xallinaa waxaanu niri wax wixii umusha u roon ayaa ilmahana u roon wax ummadda u roon dowladdana u roon aan samayno waxaanu samaynay inaanu horta aanu hay-adaha dawliga ah u kala cayino shaqooyinka ay kala leeyihiin ujeeddada ka dambaysaana ay tahay reer Jubbaland hadda ka horna waan kala hadlay waxaa aad dhibaato u noqotay qofka inuu sharciyeysto dhulka uu leeyahay oo diiwaan gashado oo hay-adda dhulka ay siiso aqoonsi qofkaas inuu leeyahay bugcadaas numberkaas leh arrintaas dadku waa ka warwareegaya laakiin waxaan is leeyahay waxa ku jirta faa'iido badan dalkaanu muddo dheer buu dawlad la'aa sharcina la'aa sharciga kan markii la keenay labada golob ay ansixiyeen waxaa la arkay sharci modern ah oo dadka anfacaya inuu yahay waxaanu isku raacnay marka in wasaaradda walba shaqada ay leedahay loo daayo ganacsigu shaqo u leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoosena shaqo ay leedahay maaliyadduna shaqo ay leedahay qolo walba shaqadeedii baa noo cayin insha Allah berrina degree baa ku soo bixi doona waxaan codsanaynaa dadweynaha reer Jubbaland wax kaleba iyagoon fiirin digrigaas inay ku shaqeeyaan qiimaha loo gooyay mid ka naxinaya maaha mid ku farxi doonaan wey iyadoo la tixgelinayo dhibaatadaas qiimaha ay ku farxaan laga qaadi doonaa laakiin muhiimadda ka weyn waxa weeye qofku inuu ka fakaro $100 oo ka baxa waxa ka xun waxa uu haystaa sharci maaha in la yiraahdo sharcigu muxuu ka caawinayaa marka wuxuu ka caawinayaa inuu deyn qaato oo bunuugta la macaamilo oo uu damaanad qaado oo bugcadiisa uu dhigto meeshuu rabo oo haddii ganacsigii uu liito iyada ay u noqoto booska labaad oo ka caawina marka waxaan ku boorinayaa shirka kan wali waa socdaa go'aamadiisa barito iyo wiigaanba waa soconaya laakiin 15 June waa dhaqan galaya waxaan aad iyo aad dadka ugu boorinayaa mudanayaal iyo marwooy hal la sharciyeysto dhulka aad haysataan haddaad ganacsi ku jirto shatiga qaado haddaad bugcad leedahayna diiwaanka sharciga hay'adda dhulka shahaadadeeda qaado nambarkeedana qaado waa adiga ku faa'iido wax adiga ku gaaraya ma laakiin maanta haddaad garanayn anigu waxaan is leeyahay waqti kale yaa laga yaabaa inaad ka shalaydo war ama sharcigaas ila fiina sharciga kan mas'uuliyiinteedu anagu waa ku qanaan aniga idin la hadlayo wasiirka arrimaha gudaha waa samaystay fadlan waxaan codsanayaa in arrinta iyada qof kasta uu xil iska saaro propagandada tan
dawladdaanu ma shaqaynayso berritay iska tegi doontaa qolo kalaa qabsanaysa war waxaas waa wax tarahaya maaha warqadda tuugada oo caddayska la marmariyaba waa la qaataaye war midda tan galaasika oo sharcigeedu uu yahay mid aan isrogrogayn adeerayaal ha la qaato shatigaaga ganacsigana gooso haddaad marka hay-adaha dowladda Jubbaland go'aan bay qaadatay hay-adaha faraha badan oo wax idinka qaadaya waa la bedelay systemkeeda oo qoranna waa la insiinaya shirkaanu maanta intaasuu la xiriiray waana isku afgarannay bari subaxna waa la dhammaystirayaa intaan hordhac baan hadda idiin siinayaa waxaan jeclahay waxyaalaha technicadaana madaxa kambaniga Milestone oo wakiil nooga ah shuruucdan dhulka iyo sharciyeynteeda yaa sii faahfaahin doona technically laakiin anigu ka wasiir ahaan waxaan leeyahay shacabka waan ku boorinayaa arrintaa shacabkayga inaan u naxo wixii sharciyana u sheego wixii sharci darrana aan ka celiyo mas-uuliyad baa iga saaran waxaan idinku boorinayaa mudanayaal iyo marwooyin maantay sloganka aan bixinayaa waxa weeye dhulkaaga sharciyeyso dukaankaagana shatigiisa qaado canshuurta yartaa kugu waajibtana iska bixi saddexdaa qodob baan leeyahay wabilaahi tawfiiq waxaana rajaynayaa inay anfici doonto